My interest is to make sure that Iran doesn't have nuclear weapons. And your pursuit of nuclear weapons. Stop testing and proliferating ballistic missiles. madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa horaantii isbuucan yiri Iran waxay wajahaysaa xaalad aad u qallafsan kana adagtii ay wajahday dagaalkii 8 sano socday ee Iran ay la gashay dalkaasi Ciraaq sanadku markuu ahaa 1980 iyo 88 asaga oo rajo ka muujiyay inuu ka gudbiyo xaaladaasi waqti dhow dalkiisa dalweynaha Mareykanka iyo xulafadiisa bariga dhexe ee Khaliijka iyo Israa'iil ayaa cadaadis dagaal u muuqda ku wadanka Iran sidoo kale Mareykanka ayaa cunaqabatayna dhaqaale aad u badan ku soo rogay wadamada xiriirka ganacsiga la leh Iran taasoo uu ku xakameeyay isha dhaqaalaha Iran oo ah shidaalka maadaama ay tahay dalka shanaad ee ugu shidaal soo saarista badan dunida dalalka uu cunaqabataynta ku soo rogay Mareykanka ayaa dalalka ganacsiga la wadaaga wadankaasi isagoo ugu hanjabay inuu cunaqabataymo dheeri ah saari doono hadii aysan joojin iibsashada shidaalka Iran sidoo kale bangiyada xiriirka ganacsiga la leh Iran ayaa kamid ah meelaha sida ba'an loo abaaray wadamada ay kamid ka yihiin Sacuudiga Imaaraat Bahrain iyo Israa'iil ayaa Mareykanka ku cadaadiyay saacad walba in Iran dagaal toos ah uu ku qaado si loo wiiqo awoodeeda dhaqaale si ay u sahlanaato in awoodda ciidan ee bariga dhexe Iran ay meesha ka baxdo Iran ayaa in ka badan 4 sano dagaal muuqda iyo mid qarsoonba kula jirta wadamada dariska la ah ee Khaliijka iyo waqooyiga Ameerika 2015 ayay ahayd markii wadamada awoodaha lixda ah leh iyo Iran ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in Iran ay joojiso bacriminta hubkeeda nuclear-ka taasoo loogu bedeli doono in Iran ganacsigeedu noqonayo mid xor ah Mareykankuna uu ka qaadayo cunaqabataynta Iran dawladda Iran ayaa soo dhaweysay heshiiskaas waana ay ogolaatay inay joojiso hubkeeda nuclear-ka وهالك أيسرت كقرنتي لبضة كونية تضبيه طبنكي أيها واحد مدحوين نبضة مريكان كالله دورتي دونالد ترامب أساقو إسلا سنة كي هورا كل واقعين مريكان كوكب حيجبي هم بهشيس كي وضا قلان إيران إنا عكلا واحد كحم هذا لما وضا مدي كلا لحظة دلي أود له يجو عن بارية قوان كترامب كقاطع إيران مدحوينها مريكان كياسي وضا يسور جدا عنقبتين عصب أخر له يدان دانسي دقال أو كتان أهودا كإيران هذا لبضة كونية سقالية طبنكي حالة كاسيدر تيمركي إيران أي شيكتي إن qabataynada cusub ee la saaray ganacsigeeda shidaalka iyo birta in ay uga jawaabi doonto inay gabi ahaan bixirta marinka Hamas oo ah marin ay badankiisu maamusho oo dhaca gacanka Persia oo u dhaxeeya Iran iyo wadamada Khaliijka kadib cabsi baahday oo soo wajahday wadamada Khaliijka ayaa Sacuudiga iyo xulufadiisa Carbeed iyo Israa'iil waxa ay Mareykanka u sheegay in Iran ay saacad walba weerar ku qaadi karto iyaga iyo ciidamadiisa ka jooga bariga dhexe Mareykanka ayaa dhawaan argagixisay oo aqoonsatay ciidamada ilaalada kacanka Iran halka ciidamada Iran ay sheegay inay bartilmaameedsan doonaan askari walba oo Amerikaan ah oo bariga dhexe jooga Mareykanka isagoo ogeen xaaladdu ay qasan tahay Iran ay sheegtay inay jarayso wadabadeedkii uu marin jiray shidaalka ugu badan ee caalamka ayaa Mareykanku waxa uu soo diray oo xaaladda si xumeeyay markabka diyaaradaha xambaaray aadka u weyn Abraham Lincoln iyo markabka kale ee Arlington oo ah mid gantaalada iyo hubka iyo sanado kale xambaarsan labadooduba waxay ku soo xirteen xeebaha badda cas warbaahinta